وانكو سلامي صاحب haddii aad weydiiso sababta waqtigu sidan oo dhan ugu midafeeyo ay isku gedgediyeeyo ee aad moodaba inaanu aaminaad iyo isku halayn lahayn waxaan ku leeyahay maalmuhu waa sir kamid ciidamada Ilaahay saaxiib dadkana uu meerto ugu kala gudbiyo si uu unkiisa u tuso in wax sida uu yahay ku waaraya aanu jirin Ilaahay mooyaane saaxiib fircoon gabood fali jiray oo waxa uu oran jiray miyaanan anigu lahayn Masar wabiyadanina aanay anigay hoos mareynin kadib Ilaahay ayaa waayaha soo wareejiyay oo biyihii hoos marayay isaga dusha ka mariyay haddii aad arki lahayd sida uu Jibriil dhoobada afka uga awday iyadoo uu arkayo cunugii yaraa ee maalin madaxtooyada isaga dhaxooyay isagoo doonaya naas u jaqo saaxiib Nabruud waxa uu oran jiray anigu waxna waan noolayaa waxna waan dilaa Ilaahay ayaa waayaha soo wareejiyay oo soo diray Kanaan noloshiisa oo dhan ba qarribtay mana aanu xasili jirin ilaa madaxiisa kaba ku garaacaan ka wiishalay isaga u sujuudayay saaxiib Nabiga sallallahu alayhi wasallam markii ayuu habeen mugdi ah ka baxay kadib markii ay Quraysh qabiil walba ka soo kaxaysay halin si hal mar ay u wada dilaan hadhow dhiigiisa cid loo raaco loo waayo Ilaahay ayaa waayaha soo wareejiyay oo nabigiisa Maka ku soo celiyay isagoo furtay dharaar cad saaxiib haddii aad arki lahayd Bilaal ibn Rabaax oo bacaad Maka ee rarnka kululaha uu Umayya ibn Khalaf dul jiifiyay waxaad odhan lahayd talow cadaabista noocaas ah cadaabi ugu dambaysa kadib aad aragto Ilaahay oo waayaha soo wareejiyay labadii kooxoodna Badar ay isku muteen Bilaalna uu seeftiisii haanka uga riday Umayya waxaad ogaan lahayd murtida rabbaaniga ee ku jirta gedgadoonka waayaha saaxiib waayuhu waa kuwa noocaas ah Ilaahay Umayya ayaana abuurtiisa dhex gedgediyay waa bukaan marna waa badqab mar waa xoolo buuxa maalina waxaan tiirnimo aan faramadaan cayda dharaar waa baraar farxadeed dharaar kalena waa balan murugeed waa si aanu ka awood leh isku qaadan ka taagta daranino quusan waa si aanu hantiluhu tacdiin faqiirkuna aanu u faquuqmin oo aanu u niyad jabin waxa uu Ilaahay ku ganayaa dadka leebabka qadarkiisa ay ku dadaan mar kastaba in aad gabooyahaas amba ganahaas la jirto waad badbaadaysaa nabadina saaxiib